inkastoo maalmihii ugu dambeeyay laga dayrinayay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada bariga fog ee Somaliland ayaa waxay noqdeen dadkii deegaanadaasi ku dhaqan kuwa la kici kari laha abaarta xoogan ee ka jirta isla deegaanadaasi halka qaarkoodna ay noqdeen kuwa u soo hayaama inta u dhaxaysa kantaroolka galbeed ee magaalada Hargeysa ilaa inta la soo gaadhayo degmada Dila oo iyadu ka tirsan gobolkani Awdal guddiga abaaraha ee gobolka Awdal maamulka gobolka iyo ka degmadu ay weheliyaan hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay baaqa qaadaan ururin loogu jiro dadka ay soo barakiciyeen abaarahaasi ka taagan bariga fog ee Somaliland waa kuwan haddaba qaar ka tirsan guddiga abaaraha gobolka Awdal iyo hoggaanka dhaqanka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa ka soo baxay qaadaan dhan $22,000 600 oo kiish oo raashina 250 kartoon oo timira 25 booyadood oo biyaha oo masaajidda ku deeqday iyo 100 kartoon oo sharaab ah waa wajigii koobaad ee qaadaan ururinta kuwa labaadna way ku xigi doonaan insha Allah waxaana la bilaabay maanta oo si rasmi ah u bilownay ururintii qaadaankii wixii loo geeyay maahine wax dambe iyo sidii dadka loo qaabil lahaa maaragtay aan aad loogu soo dhaweyn lahaa wixii loo qaban karayba loo qaban lahaa marka wajigii koobaad baa bilaabmay in laga hadhana maahay waa in maxay haynay arintaasi si aad loogu gudto halkan waxaan umada gobolka ku nool oo dhan u soo jeedinaya gaar ahaan dadka jaadka cuna qof walba maalin uunbal wax yeeshaa u qas inta cunayso kii aan cunina haku isna dhiirin ha u noqoto ha yiraahdo ninkii jaadka cunayba haduu maalin bixiyay adiguna maalin bixi ha yiraahdo geestooda waxa iyagu hadalka iska daba qaatay Maxamed Xuseen Meydhane duqa degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine waxayna ka dhawaajiyeen waxa meesha laga hagay waa gudida abaaraha ay hagaysa arintan saayna waxan dhacaysa inay dad ganacsiba ka dayaan oo dadka qaarba ka suurta gashaa waxan inay ina dhex raaciyaan intay dadka wax ka urushaan adana meelo kala weeciyaan taasina ma dhacayso waxaan u sheegaynaa dadweynuhu cid kastoo wax bixinaysa inay ku soo hagaajiso gudida abaaraha ee gobolka maaragtay la sameyn doona gudi iyadoo gudida ay hogaaminayaan abaaru in la gaaro islaadiintu in la gaaro guri walba la gaar doona marka aan jecelahay dadka intaan loo iman inay iyagu wixii ay bixinayaan bixiyaan oo ay waqtiga ilaaliyaan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga soo furto baahida ilaahay isaga weyn waaxida isaga karaya wax kasta inuu qabano dadka maaragtay maanta waxba ma tari kareen waxa la sheegayaa dad badan oo maalin walba imanaya maanta kaliya waxay sheegeen gudidii in 20 qoys yimaadeen 20 gaari si kastaba ahaatee abaartani ayaa noqonaysa mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo mar guud ahaanba geygani Somaliland Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV magaalada Boorama